gabadhaydi masaakiinta gabadhayda masaakiinta ka hadal gabadhayda anaka dadaana dhalay waxay xiran karnaa dadka haysta gabadhayda dadka gabadhayda haysto inay noolaadaan ay rabaan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo qaali maxamuud guhaad waxa maanta i keenay on shirkan jaraa'id u qabtay dhibaato i haysato dawladdu waxba ka qaban laadahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay waxba ka qaban laayihiin oo culumadii hadashay oo salaadiintii hadashay oo waxgaradkii beelaha wiya hadlay oo islaamka ilaahay hadlay oo qof kasta oo qayaaro uu ka hadlay oo waxba laga qaban waay waa dhibaato inteeda la eg waa wax lala yaabo waa waxaan adduunyada ka dhicin waa wax ummadda Soomaaliyeed aan hore uga dhicin dib weyn aan haysto gabadhaydii bisha lixaad la qaaday ilaa hadda 2 bilood waay shalay ugu ekeen labadeedii bilood wax ka hadlaaya iyo wax ka midna ma jirto qofka dambi waa galaa wax wuu haleeya wax kamada la geeya waa waarna loo jaraa sidanay wax u dhaceena la yiraahdo laakiin waa ku afduumnaana gabar yariis ah waxay halaysa maxay tahay maxay halayn kartaa gabadha yarta madaxweyne ilaa ra'iisul wasaare ilaa gudoomiye baarlamaan ilaa iyo ku xigeenkiisa ilaa iyo kii amniga ilaa iyo maxaan ku dhahayay laamaha amniga wax kasta ilaa waa laga aamusay qof kasta hadlay dibka jiro waxaan u arkaa hurmud waa hay'ad waa shirkad dhan oo isgaarsiinta Soomaaliya waxay noo diiday inay nasiiso lambarkii u dambeeyo gabadha wacay waa dhibaato waxaan meeshaas uga jeedaa power abuse na haysto oo waxba laga qabaneyn niman madaxa wadankii joogo ra'iisul wasaaraha 4.5 way wadanka waxa lagu maamulo gabadha kursiga fuulo ayay ku matalaa waxba nooma qaban lambaradooda helay asaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadoodaba waxay ii qabteen ma jirto lambaradoodii way iga qaban waayeen masajiyaan u qoray codadaan u duubay kama soo jawaabin indhaha may laayihiin way maqlayaan dhibaatada taagan indhaha maloo dhagaha maloo ma waalno ma jirino sariir ma saarno way maamulanayaan way socdaan maxay ugu dan laayihiin oo saan u galayaan waa ku ceeb labadoodaba madaxweynaha xilkiisu waa soo dhamaaday haddana xil uu rabaa seel ku dooranaa seel lagu doortaa dhibaatada jirto cunugta yartoo 3 jir oo maanta magaaladu joogo ka talinayo ku afduuban intay taala adduunyada meelay taalo malaha nimanka nabad sugid oo gabadhayda oo afduuban tahay waxa ka qabto gabadha qabiilooyin ay ka dhalatay gabadha waa 10 tolle gabadha waxay ka dhalatay gobolka Hiiraan waxay ka dhalatay Galmudug waxay ka dhalatay Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir waxay ka dhalatay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee qabiilooyinkeeda joogan intaas waa la hadlay waa la xishoonay waxa la lahay madaxweynaha ka hadli doono ra'iisul wasaaraha ka hadli doono maxaan ku dhahay waxba laga gaaraya waan dacwoonay meel kastaan tagnay waxaan tagnay nabad sugid waxaan tagnay booliis waxaan tagnay maxkamad sare meel walbaan tagnay waxba uu ka qaban layaa madaxweynaha wandhay kama hadlan dhibaatada jirto kama hadlin gabadhaydii wadnaha ay cadaaday beerka ay bisil hooyaan ahay ani waa laygu fiirsaday wax layga qabanayo ma jirto marka hadda sheekada waxa waaye waxa fali fikirtiin fala waay wadankii doorasho u socdaa wallahi oo billahi oo tallaahi inaana doorasho la aadaynin waa la isku dhamaana madaxweyne dadka hay isku dhameyn waa imaqlaysaa indhaha maliid ka hadal arinta igraan ka hadal ka soo daa nimankay waa afduubantahay xaniinyahay ku haystaan xaniinyo maahane waa kuwa la garab taagan yahay dadaan ka dhalanay dadaa dhale cunugta 10 ehelay qabtaa ciidamadan Soomaaliyeed oo gorgor iyo maxaan ku dhahayay waran iyo gamoon u bixisay waa dadkeedii 70% waa dadkeedii waa xishooneena maanta hal isdil haday tahay madaxweyne adigay ku taalaa taas gabadheydii masaakiinta gabadhayda masaakiinta ka hadal gabadhayda anaka dadaana dhalay waxay xiran karnaa dadka haysta gabadhayda haysto inay noolaadaan ay rabaan gabadhayda 2 bilood ay waa afduubantahay xoogay ku haystaan maxay tahay daday qabaan ilmay qabaan naagay qabaan inay noolaadaan ay rabaan xilay rabaan anaga way xishooneynaa ehlaan qabnaa gabadhayda nimankaas uma afduubnaan karto gabadhayda waxay laga qabto waa arinteeda madaxweyne
madaxweyne ceebay kugu tahay maanta gabar yar oo masaakiin oo gabdhahaadoo kale inay u afduubnaato nimankan gabadhayda iga soo dhafaad yaasin intuu i wacay oon u tagay oo yiri maama 2 biri naga warsug 2 maalin ilaa hadda igu soo qaadato wuxuu ka hadlaay ma laha wuxuu ka sameeyay ma laha annaga markan waxaan sameeynayna annaga inoo taala dad baan qabnaa annaga doorasho la aadayna male hal is dilo idinka ilaamiseen hal is dilo waa la is dilaya balan waa in la is dilo la is baabi'iyo hadii kale 48 saacadan soo socoto waxa laga qabtay gabadhayda la iga soo daayay nimankan hal la iga soo daayo ra'iisul wasaaraha ma hadlaayo madaxweynihi madax meel ka salaaxo ka koreey ma jirto ayaga dadkii uu hogaana ra'iisul wasaare Roble anagoo kursiga nagu matala wuxuu iga qabta male ila ma soo hadlin message aan u duubay mas'aadaan u duubay message aan u diray madaxweynaha sidoo kale adduunyada meel ay ka dhacdo malaha cunugta yarista oo intaas oo bilood hoostooda ku afduuban Soomaali inaan nahay aqalqiil naga gashay sallallahu alayhi nabi Soomaali inaan nahay aqalqiil nooga jirta calanka hoostiisa iyo hoosteeda talbeelay ilka dunyada nagu qabsaday meeluu ka dhacay ma jirto meeluu ka dhacay wallahi hadoo ka soo hadlin anigaas qaaliya buntu qaadanay wallahi wa billahi wa tallahi nimankan raba inay noolaadaan oo xilal ka rabo oo kuraasta rabo gabadhaydu waa afdoobantahay waay say ku dhacday ninkan runta sheegi beena oo qarsan wallahi wa billahi wa tallahi waxaan oo kala xaniyo taabad waay waxa sameey kartaa annaga gobolka Hiiraan deganay kulligood qabiilooyinkooda way joogaan kii baabuurku wato imaado kii socdo kii degan intaba wax waan ka qaban karnaa waa xishoonaynaa Allah ka cabsanaynaa wala ka cabsiga idinka maxaa idin diiday sallallahu alayhi maxaa idin diiday ittaqullah gabadhayda uga baqa rabbi uga cabsooda Allah arrahmaanka oo 99 magac la uga baqa culuma hadashay waxa hadlay beela hadlay islaamka ilaahay hadlay Soomaali weyna hadlayso wax ka hadlaay malaha qof ka hadlaay ma jirto waa la igu fiirsana intaas aan joogaa ilmahayga dayacan oo meel ugu soo tagay ima fiiriyaa ima la xawdaan ma ila xawdaan laakiin anaga iska la xabeynayna markaan ka bacdi ciidamada dawladda Soomaaliya ku jiro gabadhiini waa taas ama soo bixiya ama sidiina ahaada xiniyihiina wax ka jira ma leh intaas aan ku soo gabagabeynaa hadalkayga barakaad anaga waxaan nahay gabadha Ikraan eedadeed ayaan nahay waxaan la hadalnay madaxweyne ra'iisul wasaare ra'iisul baarlamaan nin aanan loo maqlin malaha nin Ikraan arinteeda moog malaha nin aan ehel qabin malaha anaga niman rag aan gacmaha ka haynaan la dhaana yaan muslimka la taaban waxaan u leenahay inay muslim dhibaatay diyaar u manin Ikraan inay u afduubnaato ee guri ugu xirnaato mid ahaanaysa ma aha hadii nabad la rabo oo wanaag la rabo oo islaamnimo ay jirto gabadheena ayaka haysto meeshay ku jirtana way ogyihiin Fahad Yaasin 2 maalmood intuu noo qabto 2 biri kadib halay sugo bil iyo baraysay maraysa gabadheena xoog cid ku haysa karta malaha nimankan ciidamada idii hawiye waa kulligood hawiye Ikraan hawiye ka dhalatay gobolka Hiiraan ka soo jeeda annaga saacad walbaan aarsan karnaa nimanka beesha la sheegto oo guryahay deganaayeen ka guurayna waan ognahay waxay ugu guureen Ikraan inay meel ku ogyihiin Ikraan waa in sida ugu dhaqsaha badan jawaab looga soo bixiya ama maya ama ha war isma saarna annaga xoogaan leenahay lixdeena lixaadan qabna ilaahay caafimaad helaan leenahay wax walbaan qabna xishoodka hadaad ka tagteen meeshaad istaagteen aan idin la istaagayna nimankan ciidanka oo haram cad iyo gorgor aad u baxsateen waa hawiyow gabadha la haysto oo guriga cawaba guri la geynayo oo masaakiinta oo waxay galabsata lahayn waxaad idinka raali ku tihiin waa hadii aad gabadhaas ka dhiidhi weysaan adinka ragga oo nin ragga oo xaniyo lahaan ay laho meel la taagan ayaa biri lagu xiraa waxa la yiri ninka ficis loo xiro adigana soo qoyso aa ku dambayso anaga dad islaan ahanahay haday islaamnimada wax aad ka taqaanaan wax maba ka taqaanaane ilaahayna ma taqaanaan ma dhihi karnee gabadheeni ha noola soo daayo sida ugu dhaqsaha badan leh anaga waa daalnay maalin kasta marka afarta xamar iyo shangaani lagu wareejinaa nin walba gabdhihiisi way u socdaan baawur caday ugu socdaan hooyadiis guriga u fadhisaa waan naqaan meeshay ku hoydaana naqaana meeshay degan yihiin aan naqaana meeshay maraan ognahay xishoodka kama tagayn dad islaananahay waa in sida ugu dhaqsaha badan leh ra'iisul wasaaraha madaxweynaha haday ka soo jawaabi waayaan fariintan aan soo dirnay jawaab laga bixi waayo
haddayna xamar iyo hiiraan iyo gobolada Kismaayo ilaa Jubbaland ilaa galgaduud aysan hoog ka dhicin alla ilaahay anaga kama dhalan dad nasaba haddii jawaab laga bixi waayo oo dadkeedii maalin kasta in laga oysiyo go'aan lagu qaatay alla ilaahay anagana dadan ka oysi doonaa oo jilbaheena ku soo oy doono jawaab ka bixi doon waa ballan iyo ahdi kana mas'uulka waa sabarna intii dad bil aadan sabra wadadaasna adinka ayaa noo faray jasaba afkiisa wuxuu ka yiri waa shakhsi oo nabad sugid ka tirsanaa gaariga lahay على كل حال أما جالسة وهي يراهدو أما هاي سكت عفو ظاهر ومقلا ظاهر إكران أدير أياد الطهي ما أنا كسر إن الجرو كده عينا وايد ماتي يا قرجان يرساس أنا بناك ولا صباحنا دجال أيام ديار ونحي والله وحنا دافين ملا عجيان كسيبنا وحنا دافين أن إكران uga daba dhiganayna ma jirto nafteena u hibeynayna nafteena hadda laga soo jawaabi wallahi inaan cid bini aadan looga cabsanaan lahayn ka soo jawaabaano waxay doonaan jidkii gabadheena martana marsiya anaga haddaan dhiman geerida xaqan ku dhimanayna ilaahay baana sheegay in geerida ninka gurigaada kugu yimaada inaad iska celiso sharcigan qabo cunugeena ninka haystana ma dhaafayno ha ku seexdaan mana la dhaafi doono ha dheeraata ha dhawaato sida ugu dhaqsaha badan ha ka soo dambe ha ka soo hadlaano jawaab ka soo bixiya waxay noqonaysaa maharto ha ka soo hadlaan gabadhaas jawaab ha ka soo bixiya nimanka madaxda sheegana xilka u wada ordaayo oo ka mid yahay xasan shiikh maxamuud muxuu hayto sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur nin kasta oo madaxweyne sheeganayo aday ku hoos imaanaysa waa naag hawiya ya waana naag abgaal cismaan ay dhaleen waa abgaal hiraab gabadhaas hiraab cid hawiya ka maqan ma jirto waa in muxuu ahayd hiraab fadhiga ka kaca gabadhaas harti abgaal hooyadeed aabaheed hooyadiis waa harti abgaal naag agoon yar gaabno gabala muuse waa inay jawaab ka soo bixiyaan in gabartiini guryihiina cawo meel lagu hooyo sharciga islaamka ma qabo